magaalada Boosaaso dhawaaqa qarax xoogan oo lala beegsaday gaari ay saarnaayeen ciidamo ka tirsan ciidanka ilaalada xeebaha ee Puntland oo marayay bartamaha magaalada Boosaaso. Qaraxa ayaa ahaa gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa waxaana lagu weeraray kolonyo gawaariya oo ay saarnaayeen ciidan ka tirsan kuwa badda Puntland oo xilligaasi la sheegay inay galbinayeen saraakiil cadaan ah. inta la xaqiijiyay 7 ruux ayaa ku dhintay qaraxa oo 3 ka mid yihiin ciidanka dawladda waxaana dhaawac uu soo gaaray 37 ruux oo isugu jira shacab iyo ciidan. Isbitaalka weyn ee magaalada Boosaaso ayaa lagu dabiibayaa dadkii uu dhaawac ka soo gaaray qaraxa waxaana lagu dhaxarkay dadweyne fara badan oo doonayay inay ogaadaan dadka uu dhibta u geystay qaraxo. jawiga magaalada Boosaaso ayaa ka duwanaa maanta sidii lagu yaqiinay waxaana bartamaha magaalada lagu dhaxarkay ciidamo fara badan oo sugaya amniga waxaana dib u soo laabtay isu socodka gaadiidka iyo dadweynaha oo gaabis ku yimid xilliga uu qaraxu dhacay. qaraxan ayaa imanaya xilli Puntland ay ku soo wajahan tahay doorashada madaxtinimada waxaana bil ka hor weerar lagu soo qaaday xabsiga Boosaaso iyadoona mas'uuliyadda weerarka xabsiga lagu qaaday iyo qaraxa maanta ka dhacay Boosaaso ay dawladdu dusha uga tuurtay ururka Al-Shabaab.